Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawaada muuqaalkan. Maanta waxaan rabaa muuqaalkan inaan idinla wadaago. Waxyaabo badan ayaa keeni kara qofka inuu quusto uu isaga tago. Waxaa keeni kara iyadoo wixii uu sameynayay marka horeba si fiican uusan u qorshaysanin. Waxaa keeni kara inuu marka horeba go'aano adag uusan samaysanin. Waxaa kaloo keeni kara inuunan samaysanin qorshe cad ee qoran oo tallaabo u samaysan ee la raaci karo oo daily ah. Waxaa kaleeto uu keeni kara inuusan ogeyn waxa uu ka rabo nolosha inuu gaaro ama waxa uu rabo inuu sameeyo inuu si fiican uusan u xadidin. Sidaa daraadeed waxaan rabaa halkaan marka inaan kuu sheego inaan sucuubaadkaas waxyaabahaas adag oo dhan aad ka gudbi karto, waliba si sahlan aad u gudbi karto. Noloshaada haddaadan qaabaynin oodan qorshe u samaysanin oo aadan qoranin, waxa ay noqonaysaa mid habacsanaan ah. Maalintii markii aad soo kacdo wax kuu qorshaysanna aysan jirin, waxaa sariirtaada caawa ku hooyan doontaa adigoo aadan waxba qabanin. Haddii hal maalin sidaas kugu dhaaftana, waxaa xigi doonta maalinta kale oo aydan saas kugu dhaafi doonto ilaa ay noqoto isbuuc, bilooyin iyo sanado. Haddii aad isweydiinaysid sanadkii hore waxaa qorshaysatay, haddii sanadkan ay ku toosi waayeen, sababtu wax kale maaha, qorshe ma aadan samaysan amaba qorshahaagii ma aadan raacin. Nolosha marka aan habaysnayn waxay ku noolaanaysaa si habacsanaan ah. Howlaheeda oo dhanna way kala tatagsanaanayaan, wax u toosayeen ma laha. Ma ka fikirtay weli haddii la rabo in guri la dhiso, waxaa loo sameeyaa engineerska waxay sameeyaan design. Marka horaan la dhisinba guriga waa laga fikiraa, waxaa loo sameeyaa naqshada gurigaas ku fadhiisan lahaa, qaabka loo qaabeyn lahaa, dhinac walbaa laga fikiraa oo la sawiraa, ama ha loo adeegsado software ama gacan ha lagu sawiro. Waxaa la qorsheeyaa oo la qaabeeyaa qaabka gurigaas u noqon lahaa. Markii aragti fiican oo rasmi ah laga haysto ayaa gurigaasi waxaa loo dhiibaa dadkii dhisi lahaa, markaasaa qaabkaasoo lagu dhisaa. Alaab kasto hadday noqoto mobile ama television ama agab kasto ama wax kasto ee warshad ama wax soo marayo, waa la dhisan karayaa, waana la qaabeeyaa. Bal ka waran noloshaada kana muhiimsan haddii aadan qaabaynin, sidee noqon? Tusaale, haddii injineerka guriga dhisayo hadduunan marka horeba qaabaynin amaba qorshaha aysan caddayn waxa laga rabo, kee qolka fadhiga noqonayo, keese qolka jiifka noqonayo, amaba inta mitirna uusan xadidin ama uusan caddaynin, haddii qoladii dhisaysa loo dhiibo maxay noqonaysaa? Waxay noqonaysaa marka inuu soo baxo guri qaab daran oo aan habaysnayn, sidii laga rabayna aan noqon. Nolosheennuna waa sidaas oo kale. Waxaan u baahannahay inaan nolosheena qaabayno. Waxaan u baahannahay inaan u samayno ahdaaf xadidan, cayiman oo waadixa oo la fahmi karo, lana ogaan karo. Waa inaad isweydiisaa su-aalahan. Maxaan aniga nolosha ka rabaa? Qof noocee ah ayaan rabaa inaan noqdo? Noloshaada sidee rabtaa inaad u hogaamiso? Waa inay qornaadaan waxaasoo dhan. Su-aalahaasna inaad isweydiisid ka horba intaadan tallaabo qaadin, oo mid walbana aad qortaa oona xadidaa. Haddaad hadaf leedahay oo hadafkaaga aad qoratid ood qaabaysid oo tallaabana aad kala bixisid, waxaa kuu fududaanaya maalin walba intii aad ka qabanayso waa ogtahay. Waxa ugu yar ee maalintii aad qabanayso waa ogtahay. Habeenkiina waxaad ku hoyanaysaa sariirtaada adiga oo wax uun kuu qabsoomeen. Noloshuna markaas waxay noqonaysaa mid qorshe leh, qorshaysan, si qiimo leh oo qurux badanna aad ku noolaanaysid. Dadka inta badanna waxay is-ilowsiiyaan amaba ay ka cararaan in ay sameeyaan qorsho. Wuu adag yahay in qorshe la sameeya haddana la raaco, aad bay u adag tahay. Waayo qofku waxa uu ku jiraa xaalad, wuxuuna rabaa inuu ka baxo xaaladaas oo xaalad kale uu tago. Marka xaaladaas aad ka bixaysid oo xaaladana aad tagaysid, xaqiiqatan way adag tahay.
waayo bini aadamku halka uu bartay ayuu mar walba jecel yahay, biicada uu bartay ayuu jecel yahay inuu mar walba ku jiro. waxaa la yidhaahdaa comfort zone. halkaas ayuu kaga jiraa. comfort zoneka inuu ka baxana ma ogola, naftaan ogoleen. waxaa u baahan taha marka nafta in la layliyo, la tababaro, loo ogoleysiiyo inay xaaladaas ay ku jirto ay ka baxdo. xaalad aad dhibsatay haddaad ku sugan tahay, way adag tahay inaad ka baxdo ilaa adiga inaad go-aansato oo aad qaadato go-aan adag inaad ka baxdid. waxaad ogaanaysaa marka haddii aadan go-aansanin xaaladaas 3 sano ka hor haddii aad ku jirtay, haddaadan go-aansanin 3 sano kale ee soo socotana sidaada ayaa ugu jiri doontaa. markaasaad waxaad ogaanaysaa 3 sano hore ee lasoo dhaafay go-aanka aad mar bilowday oo aad qaadan weyday ama aad ogaatay ama tallaabooyin aad qoratood raaci weyday ayaad waxaa u shalay doontaa haddaan waagaas raaci lahaa taladaas maanta saan maanan joogeen. saa daraadeed qofka inuu qorshihiisa ay qoran yihiin, waxa nolosha uu ka rabo inuu qoran yihiin. maxaa rabtaa inaad barato, meeshee ku liidataa aad u baahan tahay inaad horumar aad ka samayso. markaa nolosha qaabkaasa u wajahdo, noloshaaduna way quruxsanaan, mustaqbalkaadana wuu quruxsanaan, waxaana dadka agtooda uga noolaanaysaa si qiimo leh. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. intaadan ka bixin ka hor, haddii muuqaaladeeda aad ka heshay, fadlan subscribe saaro. waxaad heli doontaa muuqaalo kale oo cusub mar kastaba aan soo geliyo. haddii aad rabtid inaad daawatid kuwii horena waxaad ka daawan kartaa halkan hoose. bacdi kaga tegay sidaas iyo nabadgelyo.